kulanti wacan dhammaan daawadayaal meel kasta oo joogtaan kusoo dhawaada channelkayga Bashir Maxamed Bardaro iyo barnaamijka xogaha caqada isboortiga oo aan idinkugu soo gudbinayo saddex ciyaaryahan oo kale oo aadan ogeyn amaba aadan rumaysaneyn inay u soo ciyaaraan kooxahan aan idin sheegi doono. Waa barnaamij xiiso leh oo aan idinkugu soo gudbinayo magacyo iyo ciyaartoy saameyn leh oo ka ciyaara qaaradda Yurub kuwaas oo u soo ciyaaray kooxo aadan ku fikirin inay u soo ciyaareen isla markaana aadan rumaysanaynin inay kooxahaasi soo mareen waqti waaye ay ku soo qaateen. Ciyaaryahanka koowaad waa xidiga kooxda Liverpool ee Sadio Mane. Ma ogtahay Sadio Mane inuu u soo ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Red Bull Salzburg isagoo u saftay 63 kulan waxaana u dhaliyay 31 gool. Xidiga lagu magacaabo Sadio Mane waana mid ka mid ah magacyada saameynta leh ee kooxda Liverpool ay ku duulaan tagto. waxa uu ka tirsanaa xilli ciyaareedkii 2012 iyo 2014 waana mid ka mid ah ciyaartooyda saameynta leh ee horyaalka ka ciyaara. Haddaba ogow in Sadio Mane uu soo maray kooxda lagu magacaabo Red Bull Salzburg isla markaana uu ku soo qaatay waaye waqti hal xilli ciyaareed iyuuna xidigani kooxdaas ku qarash gareeyay. xidiga kale waa xidiga lagu magacaabo David Villa. Waa mid ka mid ah qaabeyaashii ugu fiicnaa ee kubadda cagta waana mid waayo qurux badan ku soo qaatay kooxda kubadda cagta ee Barcelona. waxaa loo arkaa David Villa mid ka mid ah kuwii ugu saameynta badnaa ee soo maray kubadda cagta, wax badanna soo bandhigay xirfado iyo sidoo kale mucjisooyin aan la rumaysan karin. waxa uu ka mid ah kuwii ugu fiicnaa ee kubadda cagta oo aan la iloobeyn bandhigga cajiibka lahaa iyo waqtigii waayihii quruxda badnaa uu kusoo qaatay Barcelona. Haddaba ma ogtahay in David Villa oo ah xidig saameyn sarena leh inuu waayo kusoo qaatay kana mid ahaan jiray kooxda Vissel Kobe 2019 isagoo hal kulan u saftay wax goolna aan u dhalin. Haddaba ogow isla markaana la soco in David Villa uu soo maray kooxda Vissel Kobe 2019 hal kulan ayuu u saftay wax goolna uma uusan dhalin. waa sheekada tixanaha ah ee ah ciyaartoy aadan rumaysaneyn isla markaana aadan ogeyn in ay u soo ciyaareen kooxo ka dhisan dunida. ciyaaryahanka kale ee ugu dambeeya ee aan barnaamijka ku soo qaadanayo oo aadan ogeyn isla markaana aadan rumaysaneyn inuu soo maray kooxdan waa xidiga lagu magacaabo Carlos Tevez oo soo maray kooxo waaweyn oo ka dhisan qaaradda Yurub waana mid ka mid ah waryahanadii ugu fiicnaa ee kubadda cagta. Carlos Tevez ma ogtahay inuu soo maray kooxda Hammers ama West Ham xilli ciyaareedkii 2016-2017 waxaana u saftay 26 kulan isagoo u dhaliyay 7 gool oo qora. waana mid ka mid ah xidigaha saameynta leh Premier League waqti fiican ku soo qaatay sidoo kalena Serie-A ayuu xidigan waqti waayo qurux badan ku soo qaatay. Haddaba la soco oo ogow xisaabtana ku darso in Carlos Tevez uu soo maray kooxda kubadda cagta ee West Ham 2016-2017 xilli ciyaareedkaas 26 kulan 7 gool ayuuna u dhaliyay. waana mid ka mid ah waryahanadii ugu fiicnaa xirfadda iyo sidoo kale xidigan isbiidka cajiibka lahaa ee uu lahaa. mid ka mid ah waxa uu ahaa waryahanadii aadka u khilaafi jiray ciyaartooyda daafacyada. gabagabadii ayaan soo gaarnay, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka xogaha caqada isboortiga oo aan idinkugu soo gudbiyo ciyaartooy iyo magacyo saameyn leh oo ka mid ah xirfadlayaasha ugu fiican kubadda cagta oo aadan ogeyn isla markaana aadan rumaysanaynin inay soo mareen kooxo ka dhisan dunida waqti waayeen ay ku soo qaateen, balse aan kuu sheegi doono si aad xisaabta ugu darsato. intaasaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo qaybta xigta intaan dib ugu kulmi doono ciyaartooy kale oo aan soo qaadan doono oo aadan ogeyn isla markaana aadan rumaysaneyn inay kooxahaasi waqti waayo ku soo qaateen ayaa noo madala. kulan dambe intaanan ka bixin fadlan subscribe, like, comment and share si aan idinkugu soo sameyno muuqaalo kale xiiso leh. nabadgelyo, waad mahadsantihiin saaxiibayaal.